السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسر دمان أصحابتي قالي أمل بعدين جوكتين وعلى سلامي. halka anaga daawanaysiin waa simple iimaan magacayga waa Faadimo. haddii tahay marka kugu horeyso aad channelkan soo booqato ama muuqaalkan ay aragtid, please subscribe noo saar, like ta noogu sii wixii comment iyo fikir ahna hoos noogu reeb noogu soo biir. asxaabta qaaliga ah dhammaantiin waa mahadsantihiin sida quruxda badan ay noogu xirantihiin muuqaalada aan soo dhigno mar walba commentiyada quruxda badan ay ugu soo bixinaysay. waa mahadsantihiin dhammaantiin inta daawanayso. hadda adiga cusub tahayna soo dhawow walaal qaali, inta hore noola joogtana waa mahadsan yihiin. asxaabta maanta maxaa wadaa barnaamijkii aan hore u waday, maanta barnaamijka dugan aan wadaa asxaabta. muuqaalkii shalay aan iskuulada kaga hadlayay, maanta waxaa rabaa inaan muuqaal kaleeto oo dhacdo kale aniga aan website ka akhriyay ama bariyahanba socotay inaan ka hadlaa rabaa, oo yani run ahaantii aad iiga yaabise. dhacdadaas waxay tahay maadaama bariyahan dambe ee gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood lagu eedeynayay in ay sameystaan xalfado markii la furo ka bacdi, qaarkood hadda soo badanaysa waayadan dambe markii la kala tago kale waxaa arkaysaa gabadh lacagteeda meelka loo siiyay intay la soo boodo hotel ku kareysatay inay maaragtay xalfad ku dhigato oo kale, oo wax at least wax un ku sameyso. laakiin sheekada sheeko ka duwanaayo imaataba hadartaan. maanta waxaa website ka akhrinayay arrin aan la yaabo run ahaantii gabadhaasi u hindistay, yani macnaha ay ka rabtay iyo wixii ay ka damacsaneed kulley ma fahmay. laakiin maxay kala tageen odaygeedii kala tageen gabadhaas. waxay isqabeen muddo boyfriend iyo girlfriend soo wada hayeen, kadib way isguursadeen. kadib waxay isqabeen muddo 1 sano ah ay isqabeen. 1 sano kadib gabadhii wiilkii yani way kala tageen. markay kala tageen kadib gabadha waxay samaysatay yani run ahaantii xalfad aad u ballaaran samaysatay. waxay qarash ku bixisay, yani qarash dhaaf ay ku bixisay in ninkii asaga ahaa la sameeyo yani cake asaga yani siduu asaga yani ahaa qaabkiisa ahaa intii loogu sameeyo oo sariir loo dul saaro. kadib xalfadda ay iskugu wacday asxaabteeda ay iskugu imaadeen, tartiib qaadatay ee marba meel kasoo jaranaysa, mar lugta jabal kasoo jarato, mar gacanta kasoo jarato, mar madaxa kasoo jarato, mar inta kasoo jarato. yani xalfad dhanay waxay kusoo gabagabaysay ninkii oo keeg looga soo dhigay inay marba qeyb ka jarato. yani waa howl kaleeto run ahaantii oo hadda nagu soo biirtay. awalna anaga Soomaali haddaan hore umaana garanaynin in xalfad markii gabar la furo ay dhigato, laakiin hadda waayadan dambe waa arkayna in howlo la kireysanayay, xalfado la dhiganayay, waxyaalo badan oo anaga aan dhaqan ahaan u lahayn horta la sameynayay way jirtay. laakiin hadda waxaa imaataba in shape-kii ninka la sameeyo oo laga dhigo qofkii oo halkaas soo fadhiyo. kadib saa ujeediin waxaa la sameynayaa qofka saasaa loo jarjarayaa, gacanta keliya waa ujeedi inta qeybo laga dhigay. kadib saasaa loo qaandeysanaa. run ahaantii soomaalidana waa dad aad iyo aad u dhagan nugul, wax walba oo adduunka ku cusub waxay jecel yihiin inay degdeg express dadka u dabageeyaan. yani ani su-aasha isweydiinaya hadda waxay tahay Faadimo ahaan, qofkaas keega laga soo dhigay maadaama uusan qofkii ahayn, yani macnaha qarashka ay ku bixisayna gabadhaas hadda run ahaantii $1 ay ku bixisay in intaasoo keega ay soo sameyso, yani ninkii ay usoo ekeysiiso. run ahaantii waa farsamo qaadanayso cabaar in qofkii loo soo ekeysiiyo keeg weynaatay, yani halkaa lasoo sooxiyo, gacan la sameeyo, wejigiisa la shape gareeyo, lasoo sameeyo. yani waxay qaadanaysaa muddo aad iyo aad u dheer run ahaantii. yani hadda farsamo ahaan markii laga sheekeynayo oo maskaxdeeda markaan aniga baaray ama dib ugu laabtay, yani waxaan dareemay in keegaas ay qaadato waqti badan ay qaadatay, because keeg qof loo ekeysiinayo waa dareemi kartaa inta lagu bixiyey qarash. marka waxaasoo qarash haba ka baxaanbo ma xumo, dadkeeda iskugu wacato ma xumo, qaadaha qaadato ha soo gogoosato ma xumo. laakiin hadda keeg lay cunto hadda gabadhaas, hadda waxay soo kordhisay oo hadda ay soo yani ama qof ay ka jartay. waxaa isweydiinaya maxay qofkaas ka jari kartaa camal. yani ani hadda macnaha haddii keeg lii ekeysiyo xagga lii dhigo oo qof intuu soo qaado uu cuno, macnaheeda ma ahan inaa aniga lii cunay. ninka hadda maybe wuu nool yahay, nolol qurux badan waa laga yaabaa inuu iskaga jiro, danihiisa laga yaabaa inuu ku mashquulsan yahay, waxaa laga yaabaa waxyaalo adiga macnaha hadartaan oo isaga
qaas u ah inuu qabsanayo daata nolol oo soo dhaaftana intuu foogad iska dhahay nolol kaleeto inuu balangareysanayo laga yaabo halka adigii aa ku mashquushay inaad lacagtaadii oo waxyaalo kale aa ku qabsan lahayd aa ku qarash garaysa inaad keeg soo gadid lasoo design gareeyo meel xalfad ku qabatid la jarjaro haddana waxaasoo juhud adoo samaynaysa dana qofka waxba kama tarayso waxba kama jarayso waxbana kuma kordhinayso laakiin arrinta la yaab kale waxaa waa isweydiiyo kolley gabdhaha soomaalida wayba samayn doonaane gabadha ugu horeysa soomaalida waxaan la yaabana intay soo boodo keeg nin oo keysi soo cuni doonto meeshay joogi doonto kolley soomaaliya way badan tahay ilan aada waxaa u jecelnahay intaa coobi bastiga aada u jecelnahay hadda waagi horeeto waa arki jirteen xirfado lamaga qabatiri jirin gabadha markii qof reer kasoo burburo ama wax un ku dhacan macnaha waxay ahaan jirta wax laga naxo oo yani murugo badan keento oo waxay ahaan jirtay yani hadda murugada way jirtaa oo murugo la-aan ma la aha laakiin dadkia waxay iska caadaysteenbo in macnaha yani liska matelo farxad yani macnaha iyadoo wax walbana gudaha lagu haayo yani gabadhaas hadda keega samaysato kuleelaa ka keenay kuleyga dabcan waa dareemi kartaa qof intuu orday qof kale soo design gareeyey googoostayoo cunay macnaha xanaaqa intaas la eg oo ka keenay gabadhaas yani sheekada marka akhriyay yani waxaa iiga soo baxday in gabadhaasi aad yani ani waxa sa aniga umaleeyay faadum ahaan waaye sa aniga umaleeyay waaye yani waxaa halkaas iiga soo baxay in gabadhaas ay ninkaas aad ugu xanaaqsaneyd saan filaayo tan kalena waxaa waaye kolley hadda nimanka godkooda biyo ugu soo galeen waxaa waaye hadda haddii faarax uu baxo tartiib waxaan ku dhahay foornada unbaa tegaysa waxaa leedahay keeg u eg un halii sameeyo aan qarda damsade hadda xaalka waa iska noocaas hadda waxaa waaye halkaasay maraysaa bahasha waa lis qarda damsanayo kolley kii nin ahay godkiisa biyo ugu soo galay waxaa waaye haddartaan xaaladu way isbedeshay adduun casriyeysana ayaani la joogaa hadda xaalka wuu isbedelay adduunka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa ka dugan mogtahay waxaa waaye hadda xaaladdu waxay maraysaa in keegag laisku ekeysiiyo yani hadda xataa nimanka way ka tegi doontaa waxaan ka yaabi doonaa gabdhaha soomaalida markay laba qof isdagaalaan oo kaleeto keeg u eg unbaa soo samaysanay miis halkaan unbaa lasoo dul fariisanay un mindidaada yarteedna waa soo qaadanay dhac waa gabalgabalaysanay inkastoo ay waxaas tahay wax iska qiyaali ah yani waa iska qiyaali ay arkaysid because qofka aa cuntay oo yani keegaas aa kusoo samaysay adun buu qarash kaa dhumay qofkaasaa kuma cuni kartid ma fahanteen asxaabta qaadaliga hadalka waa idinku badiyaa umaleeyaa hadday tahay marka kugu horreysay waa janalkeeni soo booqatid please subscribe noo saar janalka like noo saar comment wix fikiraan hoos noogu reeb waxaan ku yiri nagu soo biir intaa barnaamijkiga ku kulmi doono insha allah biidnillahi kariim waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaane allah nooli kulantay